بسم الله الرحمن الرحيم سورة وادة دعوة قيمها طوال kanaalka xog iftiishay oo idinku soo gudbin doono barnaamijyo kala duwan oo idin xiise geliya. Maanta waxaan ka hadli doonaa taariikhda guusha halgamaaga weyn ee Nick. Maanta waxaan u soo qaadanay Nick Fury. waa shakhsi nolosha ka gaaray guul iyo horumar la taaban karo. Nick Fury waxa uu dhashay wadanka Australia, waxa iska dhalay aabiyo hooyo ka soo jeeda qaaradda Yurub, gaar ahaan wadamada dhaqaalahoodu hooseeya Yurub, wadanka Bosnia iyo Yugoslavia. wuxuu ka soo jeeday wadanka Yugoslavia hooyadiina Bosnia. waxa uu ku dhashay Nick Fury 1982 wadanka Australia, gaar ahaan magaalada Melbourne. markii uu dhashay hooyadii way u qaadan weyday waana rumaysan weyday, balse waxa ku qancisay nursingkii ama dhakhtaradii kalkaalisada ahayd inay ilmahan haysato. isla markaana Nick Fury waxa uu la dhashay dhacdo cajaa'ib ah oo in la arko nooceeda ay naadir tahay. waa xanuunka la ilaa mecobalia, waana xanuun ku dhaca inta badan oo naadir ah gacmo la'aan iyo luga la'aan, bal iska badaayo inuu gacmo iyo luga leeyahay. waxa weeye saynu aragno kuma yaalaan. ma jira dad noocan oo ku dhasha xanuunkan? haa way jiraan, balse Nick Fury su'aasha isweydiinta tahay waxa uu uga duwan yahay dadkaas. Nick Fury wuxuu uga duwan yahay waxa uu ka gaaray nolosha guul, waana shakhsi muraayad u ah dadka naafada ah, gaar ahaan kuwa laxaadka gebi ahaanba aan lahayn. Nick malaha agaw ku socdo si ay u socono oo wax ku soo qabsado kuna socdo. Nick Fury malaha gacmo uu wax ku qabsado, sidoo kale wax ku cuno, waxna uu ku dhigto baahiyaadkiisa asaasiga ah oo ku qabto. balse duruufaha iyo sidoo ku dhashay marnaba ismu dhiibin in ay bedesho waaqiciisa nololeed. Nick Fury waxa la geeyay iskuul dadka caadiga ah wax ku dhigtaan, balse nasiib darro waxa uu kala kulmay faquuq iyo midab kala sooc, maadaama oo loo arkayay qof ka hooseeya dadka kale. 10 jir markuu gaaray waxa uu Nick Fury isku dayay inuu naftiisa isdhaafiyo ama istilo oo adduunyadan aan wax nasiib ku lahayn. xaaladdu sidaa haataba waxa uu bartay cilmiga kombiyuutarka, kaasoo u hooseeday iftiin iyo ilays u soo baxay. waxa uu wax ku qori jiray qayb ka mid ah qaarkiisa dambe, gaar ahaan lugtiisa oo aad u yar. saynu aragnana aynu arkayno inaanu qof awoodo in wax qor-aanay u muuqan, balse Soomaalidu waxay tidhaahdaa nin tuur leh tab u seexda ma waayo, balse waa uu ku guuleystay kama dhammaystii inuu barto cilmiga kombiyuutarka. waxa uu minidkiiba qori jiray 40 xaraf. waxa uu ka baxay waxbarashada asaasiga ah, waxa uu gaaray heer jaamacadeed. waxa uu 2 shahaado ka qaatay shahaadada bachelor degree-ga ee accountancy-ga iyo financial-ka. Nick Fury waxa uu aasaasay urur maxalli ah, sidoo kalena caalami markii uu noqday, oo la yiraahdo Life Without Limits, noloshu waa bilaa gacmo iyo bilaa lugo. waxa uu noqday motivation weyn ama public speaker, malaayiin qof hantay oo ay dadku noqdeen muraayad ay isku daawadaan ama shakhsi ay ku daydaan inay noloshu isdhiib lahayn duruuf kasta iyo xaalad kasta iyo waaye kasta aad ku jirtid. 2005 waxa uu noqday shakhsigii dhalinyarta ahaa ee ugu fiicnaa wadanka Australia iyo gaar ahaan qaaradda Australia, isagoo aan arkayno lixaadkiisa iyo qaynku u yahay. aan oran karno waa waslad yar. Nick Fury waxa uu sidoo kale aasaasay urur la yiraahdo Attitude oo dhiirigeliyo dhammaan dhalinyarta caalamka. waxa uu khudbadeeyay in ka badan 3 milyan oo qof. waxa uu booqday in ka badan 40 wadan. Nick Fury waa shakhsi baaldahaba ku leh taariikhda dadka lixaadkoodu leeyahay. Nick Fury waa aabba dhalay 4 carruur ah, isla markaana xaas qaba, kuna nool noloshu raaxo leh oo happy ah. waxaa laga hayaa mahadhooyin waaweyn oo ah xorriyanimada rasmiga waa maskaxda ee ma aha jirka. dabadaawada waxaanu ka faa'iideynaa qisadan oo aynu kala baxaynaa in duruuf kasta iyo xaalad kasta oo noloshu ku barto wadidna halganka nolosha. daba waxaan ka codsanayaa si aynu dhiirigelin noogu noqoto annaguna u soo wadno barnaamijyo kala duwan oo kanaalka aanu soo gelin doono oo dadku ay ka faa'iidaan, in idinkuna nagu taageertaan subscribe-ka iyo like. aad ayaa u mahadsantihiin daawadayaasha qiimaha badan ee ku xidhan kanaalka.